leh waa mu'aamaraad oo waxaas frame garaynaya wax mu'aamaraad la yiraahdo oo aniga aan sameeynayn wallahi billahi talaan jir waxaan shil ayuu ahaa sida ugu fiican inaan u handal garayaan aaminsana wayahay dhanka kale waxaa jira kulan Cabdi Xaashi iyo xubno kale aqalka sare ay madaxweyne farmaajo la qaateen iyagoo xog doon ah arrintan qalbi dhagax ku saabsan markii u tageerna madaxweynaha adigu kula soo xiriiray telefoonkaas oo wacay deetana aad ku beertay kulankaasi madaxweyne farmaajo iyo Cabdi Xaashi madaxweynuhu uu ku yiri waxa ay sheegaysaa Cabdi Xaashi oo sheeg kulankaasi maxaa lagu hadashay arrinkaas waxbana ku darimaha waxbana ka dhimaha sida Cabdi Xaashi uu sheegay inaan madaxweynaha iyo aniga inta la weydiiyo waxaas aan sheegnay waa run been ma ka shalaynaysaa xariga madaxweynaha iyo hadda anigu ma ku jirin waa la qasbay waa la yeelay aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in laga cafiyaan rabaan ku yiri laakiin dhanka kale waxaa jirta in qalbi dhagax ku dhiisan oo fiisa in laga caawiyo dawladda Itoobiya loo dhiibo oo raali ka yahay si Itoobiya uu la heshiiyo sidaas ma u jirtaa si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinay in ay qaataan maqaldam waa ilaahay oo aan inay golaha wasiirada fadhiisiyaan kaasa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulanti waan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno ambassador Abdullahi Maxamed Ali Sambalolshe taliye hore ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya sidoo kalena soo noqday ambassadorkii dawladda Soomaaliya u fadhiyay dalka UK waraysigani haddii ay yiraahdo waxaan diiradda ku saari doonaa hadalhayn dib u soo uga timid kiiskii qalbi dhagax oo mar dawladda dhexe Soomaaliya ay ka soo xirtay gaalkacyo sidaasina loogu wareejiyay dawladda Itoobiya waraysi ay bixiyeen qaar ka mid ah madaxda dawladda Soomaaliya ayaa hadalhayn fara badan ay ka dhalatay inagoo eegayna xogta looga baahan yahay in laga helo arrintan ayaynu waxaan xafiiskiisa ku booqanay ambassador Sambalolshe oo aan arrimahaasi wax ka weydiinayno ambassador waxay noo tahay fursad mar kale inaan xafiiskaaga joogno intaasi kadib 72 saacadood ee la soo dhaafay baraha bulshada iyo warbaahinta waxay aad u hadalhayeen kiiska qalbi dhagax oo mar kale soo ifbaxay waxaana ka hadlay afayeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan in kiiskaasi iyo habkii loola tacaamulay xog far badan aad adigu ka bixinaysay kulug lahayd kulamo madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi iyo xubno kale oo sanatarada ah goobjoog aad ka ahayd maxaad inagala wadaagi kartaa arrimahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantiin tiimka dalsan runtiina mawduucan waa mawduuc timely ah ama waqtigii ku habboonaa in laga hadlo ay joogto anigu horta muddaba arrinkan waa arrin xasaasi ah waana ka leexleexanay si toos ah uga hadlo anigoo ilaashanaya my professional credibility because taliyihii sirdoonkan ahay mas'uuliyaddeeda koowaad waxay tahay sirta qaranka xafiiskaas intaan joogo inaan ilaaliyo sirtaasna waxaa ka mid ah go'aamo waaweyn oo saameyn ummadda Soomaaliyeed ku leh ama ha qaldanaadaano ama ha saxsanaadaano muddadii 3 sano la soo dhaafay waa maalin kasta waa farta afka la gelinayay si aan arrinkan uga hadlo hadda bacdama uu u muuqdo mashruucan ama hadalkan musalsal ma dhamaata ah anigoo tixraacaya hadalkii maaldoweed adeer Cabdi Xaashi uu sheegay horta anigiisa u fahmay sida Cabdi Xaashi hadalka uu dhigay dadka u fasiranaya anigu uma fahmin inuu mas'uuliyadda bilaaw iyo dhamaad Sambalolshe uu saaray sida Cabdi Xaashi uu sheegay anigoona hadda mana ku beeninayo sida loo fasirtay ma si inta uu sheegay ma beeninayo waa runtiis horta aniga iyo asaga iyo madaxweynaha wada hadalkaas inuu dhaxmaray waa run laakiin su'aashu waxay tahay horta meesha Cabdi Xaashi ugu la kulmay xagee ahayd yaasi joogay markuu la kulmay qalbi dhagax markaas ka hor ma la dhiibay mise kadib ayaa la dhiibay asagoo oday Soomaaliyeed oo arrinka laga tala geliyay oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ku soo baxay ayuu ahaay muxuu ka qabtay haddii uu nin wadaniya ama xaldoon yahay markaas muxuu intervention u sameey waayay sida asagaba ay uga hoos bixi karto taladu ay horta qof kasta mas'uuliyada oo Soomaaliyeedna talada uga hoos bixi karta horta maqaldam waa ilaahay waxaan rabaa marka rekoorka arrinkan inaan sadgareeyo oo aan ifiyo shaqada nabad sugidda horta waxay tahay iyo doorka ninka madaxda ka ah marka ay timaado qadiyadahan oo kale muxuu yahay
horta sida malaa'igta ilaahay qaarna ay furaha jannada u hayso qaarna ay furaha cadaabta u hayso ama ay maamusho cadaabta ama ay jannada maamusho labadooduba shaqo kala fiican hayaan laakiin dabcan shaqadii loo idmaday oo ilaahay u dirsaday hayaan shaqada nabad sugiddu horta shaqo dadka loo burcad loogu mariyo maaha maali ilaahay keeno daday soo qabataa ama wax cad ha ku hayso ama tuun ha ku haysee shaqadii horta dad soo qabasho waay hadda ka hor nabad sugidda aan joogay hadda ka hor qalbi dhagaxna magaalada joogay sooma qaban wax kastana waqti iyo qadar allaa jirta anigu marka sideedaba soo qabashaan leehay haysmana waa leehay markay timaado foreign policyga dowlad kaleeto iyo dowladda soomaaliya wax dhex maraya horta aniga mas-uuliyaddaas malihi xukuumadan u dhisan madaxweyney leedahay ilaama kale dowladooda fara badan oo la dhaqma aniga shakhsiyan mas-uuliyadda iskama filqaayo oo waxaan rabaa inaan qirto qaybtii aan ku lahay doorkaas dabcan shaqada iyo xafiiska iyo mas-uuliyaddaasa ii keenaysay haddaba qof intaan qabto mana xiraayey ii sheeg mana dhiibaay waxaan rabaa marka inaan fahmo horta dadka soomaaliyeed haddii uusan is-indhatirayn wuu fahmi karaa wuuna miisaami karaa siday wax u dhaceen waxaan rabaa marka aniga shakhsiyan nin oo mas-uuliyaddiisa ka gelgelanaya maaha marka howlahan oo kaleo xasaasiga iyo xafiis xasaasigan aad ku dhex jirto go-aamo badan oo criticaala oo natiijadoodu qaldamaan iyo kuwa saxmaanba waad samaynaysaa anigu shakhsiyan waxaan rabaa in aan horta qalbi dhagaxa iyo qoyskiisii iyo ummadda soomaaliyeed iyo onlf aan ugu cudur daarto oo raaligelin buuxda oo publiga aan ka bixiyo doorkii aan ku lahaa waxaana rabaa soomaali inaan u sheego arrinkaasu anigana igama bilaaban igumana dhammaan inuusan iga bilaabanin iguna dhammaanin waxaad caddayno ah qalbi dhagax waxaa laga qabtay gaalkacyo si kastabaa lagu sida loo qabtay iyo cidda ka dambaysay iyo annada waxa waaye ama wakti kalean ka hadli doonaa faahfaahinteeda haddana ma rabna inaan ii sheegeen waaba arrimo sira maba fiicnaba laakiin maalin oo declassification lagu samayn karo ayaa jirto laga hadli karo haddii aniga marka aan qalbi dhagax mashruuciisa ugu kooban yahay qalbi dhagax gaalkacyo ayaa cabdi iley iyo etoobiyaan iyo ciidan puntland iyo maamulka galmudug ay kulligood ku baratamayeen inuu gacanta u galo etoobiyana lagu wareejiyo markaas horta gaalkacyo la joogo sanbaloshaa waxaan ku takri falay waa la dhihi karay ayada nafteedana hadde ay tahay yacni doorkan ku lahay iyo taas nafteeduna calaama su-aal ay ka taagan tahay qalbi dhagax aniga waxaan aaminsanahay waa soo badbaadiyey bad iyo calool nibari ku jira waa ka soo baxshay xamaraan keenay xamar markii aan keenay horta kadib aa la diray gaalkacyo lagama dirin haddii gaalkacyo laga diri lahay cabdiiloy inuu dilo si raqiisa in loo gato qadiyad wax oo hadda oo ka faa'iidi lahay gaalkacyo in laga dhiibo ninka la yidhaahdo ii sheeg maxaan ku dhahaa qalbi dhagaxna oo wax oo ka faa'iidi lahayn anigu hadda ma oga waxaa kuu soo haray dadaa leh waa mu'aamaraad oo waxaas frame garaynaya wax mu'aamaraad la yidhaahdo oo aniga aan samaynayn wallaahi billaahi talaan is jir waxaan shil ayuu ahaa sida ugu fiican inaan u handal garayaan aaminsanahay oo ay tahay horta kow ninkii habal la qabtee laakiin si raqiisa inuusan ku bixin xamaraa la keenay kadib xamar uu ka tegey anigoo hadda aan lahayn hebelaa ka dambeeyey hebelaa ka dambeeyey hebelaa ka dambeeyey waxaan rabaa marka inaan soomaalina mid idhaahdo qalbi dhagaxna iyo ololafna mid dhaho madaxweynaha iyo xukuumaddana mid aan dhaho waxaan rabaa horta kow madaxweynaha iyo xukuumadda kayskan sida aan u handalgaraynay overall mas-uuliyaddiisa ka macaran karna waa mishandalgaraynay si fiican waxaan oo daraamaa iyo buuq ah mishandalin micnaha marhabaabin maahan yani sida oo loo xakameeyey si xigmaysan ma ahayn anisaa aaminsanaha waxaasuna dee ama duruuftaha iyo waxaasaa keena gadaalaan ka faahfaahin doonaa waxaan jeclahay marka bacdamaa
xukuumadda Soomaaliya oo NLF iyo qalbi dhagax iyo waxoo dhanba ay yiraahdeen waa argagixiso horta waxaan rabaa xukuumaddii dib in loo fadhiisiyo talada aan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha siinayo waay oo ay Ethiopia oo shalayba ay terrorist NLFna ugu qoray qalbi dhagaxna ugu qoray waa ka tiraan waa xisbi iyo dhaqdhaqaaq la aqoonsiyahay oo xalaala oo aan argagixisay Ethiopia ka ahayn hadii Ethiopia shalay ay la dagaalamaysa ay maanta argagixisay ka ahayn annaga buukiskeena argagixisay oo NLF kuma qornaan karto si mashruucan loo xaliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanay go'aan geesinimo in ay qaataan maqaldam waa ilaahay oo NLF inay golaha wasiirada fadhiisiyaan ka saaran liiska argagixisada oo NLF xamar ay ku marti qaadaan qalbi dhagax xamar ay ku marti qaadaan si guud Soomaaliya ay ugu samayn xirto ugu hoyato ugu raali geliso oo NLFna ay fursad ay u hesho in caasimadda timaado baarlamaankii ka dagaalamay level garayntii iyo argagixisada lagu soo rogana ay u mahad celiyaan taas horta madaxweynaha waxaan kula talinaa ii sheegeen waxaan kula talinaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda guud ahaan mashruucan inay iska soo xiraan raali ahawna waa wax la fahmi karo nin weyn qaladkiisa qartana dadku waa ka garaabi karaa waxaan rabaa qalbi dhagax iyo la filmidaan dhaho qalbi dhagax hadda kor xabsigan ugu tagay waxaan u sheegay dawladdii Soomaaliyeed tacbaanka ahayd dartiisan u dumar rabto waxaan ka codsaday asaga uu badbaadi doonaa inuu ka faa'iidana dhici karta waxa uu hadda sharta loo maleynaaye horta inaysan dartiis dawladda Soomaaliyeed aysan u dumin oo farmaajo Soomaali haddii si kaleeto u ridayso ama ay talaab uga qaadayso kuushiya lagu qabsan karaa jiree because of qalbi dhagax inaan horta maalin ilaahay keeno aanan cusbada nabarka farmaajo lagu xoqoqay Soomaalida haddii lagu soo jeediyo apology iyo raali gelinta aniga shakhsi aan ku soo jeedo in nin hadda waxna deystan waxna disho waa tahay waa garaawis karta inuu uga garaabo guud ahaan oo NLF iyo asagana waa rabaa haddii Soomaalida iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu kalsoonidaas intii go'aankaas qaataan raali gelin ka qaataan inuu qaato waa rabaa waxaan rabaa marka mashruucan marka Soomaalida midaan leeyahay Soomaalida waxay tahay waxaanu daraamaa iyo waxaanu negativity iyo waxaanu weerar waxa lagu toojar gareynaa madaxweynaha lagu toojar gareynaa ee wax ma aaminsanay Soomaalidan qaylinayso crocodile tears waayo oo hintooda waa been مواد ودانينما إني كتاي مقبو Soomaali jecel inay ka tahay ma qabo qalbi dhagax difaac inay ka tahay ma qabo qadiyad oo aan la fi u taagay inay ka tahay ma qabo madaxweynihii bacda ma wixii la kala cadeey waayo ninkaana lagu dhiba oo lagu tuhunsayahay wadananimo iyo malaha hadda ka hor game uu soo dheelaa lagu xumeeyna ma ogiye ma u maleynay Soomaalidu in ay waxaanu dhab ka tahay war Soomaaliya sideedaba ishaan waxa u yeelo waa Soomaali ee farmaajo uma yeelin farmaajina dawlad Soomaalina ma difaaci karo qof Soomaalina ma difaaci karo inta duruufteenu sidan ka tahay dabiiciyan dawladaha fashilmay oo wiiga ah anagoo kale taa qadiyadahooda iyo go'aamadooda masiiriga siyaasadeedna uma madax banaana tusaale waxa ka soo ah adduunka dagaal ka soo dhacay Germany oo kale hadda economic power ka Europe dagaalkii labada adduunka 45 inta la qabsaday ayaa quwadaha Ruushka iyo Mareykanka iyo Yurubiyaanku qaybsadeen ciidan ma sameeyay kartiin madaxdoodii maxkamadda la saaray dagaalkii magdhawa lagu xukumay waa la gumeystay Ruush iyo ninba meel uu ka degay taaka loo qaybsaday humiliation waa la qaataa ويعني وحال قاتا إهانة ولا قاتا ظروفها وكل الدولة مركي مرايان marka madaxweyne Soomaaliyeed oo heybad ilaalin kara annaga duruuftan ku jirna ma jiro ninka odaga wuxuu san karin horta in lagu dhibin taas waxaan rabaa Soomaalida inaan ka codsano historyga kale aan rabaa inaan sheego waxay tahay Jarmal waa ka soo dabaalatay maxay ugu soo dabaalatay dulqaad ay ugu soo dabaalatay in ayaduna si tartiiba ay dhaqaalaheedii iyo siyaasadeedii iyo madaxbannaanida u soo ceshato midnimadeedina ay soo ceshato maantana awood muuqato adduunka Yurub ka jirtana ay noqoto Japan nuclear lagu garaacay waa la qabsaday dalkeeda ciidana ma sameeyay kartiin xamaasha bisaa la yiri adduunka economic powers ku jirta dulqaad ay soo yeelatay Finland waxa jirta dagaalkii labaad ee adduunka waxay la dagaalaysay Ruushka diris la dabcan waan la isku garan karaa Finland oo 6 milyan 7 milyan ah
iyo ruushoo 100 milyan ama soviet markaas almost 300-400 million people ahay waa wajahday waa qaldantay last minute haddii ka weysay reer galbeedkii gacan ayadoon jeclayna allah waxay la noqotay Hitler iyo Naziintii wax yar kadibna Hitleraa jababa ayadii marka waxay noqotay they have to pay the price madaxweynihii dagaalka hogaaminaya wasiirkii gaashaandhigga wasiirkii arrimaha dibadda italiyii ciidanka waxa lagu qasbay oo geesiyaal qaran ahay waxa lagu qasbay in la maxkamadeeyo oo dagaalkii ay ku difaacayeen Finland lagu dambeeyay war ahaanada Soomaaliya qof haybadeeda ilaali karta ma jirto dawladda haday jabtee madaxweynaha ayaan lagu dhibin mashruucan oo indhaha faraha ayaan loo gelin waxaan jeclahay kiiskan inuu soo xirmo shakhsiyan aniga waxaan wax aniga iga bilowda iguna dhamaada ma ahan waa wax dawladda Soomaaliyeed gibi ahaanteed u yaal horta waxaan rabaa inaan arrinka aan saas u cadeeyo waxaan kaloo rabaa madaxweynaha mid aan xasuusiyo aniga hadda ka hortilahan wasuuda aniga ahaa waa timar laga qaaday maxaa laga qaaday waxa laga qaaday xildhibaana xirti horta aniga xildhibaankaas ma xirin kiiska u muuqanaysa taas ma muuqanaysa meeshaan ku jirta meeshaan rabaa inaan cadeeyo meeshaan rabaa xildhibaana xirta aniga lagu eedeeyay xildhibaankaas anigu ma xirin nin sarkaala oo meesha nabad sugidda haysta godka xiray laakiin aniga eedda qaato waxa yidhi anaa xiray waxaan diidayay qof shaqaalahayga ah oo aniga madaxooda ahay in gacanta inta lay diibto ii sheegeen maxaan ku dhahaa anigu ma xirin isagaa xiray si aan jagadeeda u badbaadsado madaxweynaha sideedaba ceebay ku tahay waxaan aniga mas-uul kama ahayn hebeloo ii shaqaynaya mas-uulka inuu naga naf jeclaysto iyo dadkiis uu ka naf jeclaysto dadka raba oo taageerada beentaana ay saas ay u sawiraan horta waa laga fiican yahay everything oo under his leadership ku dhaca sax qaladba mas-uuliyadiisa ma laga gaban karo sida anigaba taas aan u gaban oo aan shaqadeeda ku waayay waya qofkan shaqaalaha ah ee liisa ka shaqaynayay ee xildhibaanka xiray ma la wadaagi kartaa kuma ayuu ahaa ma hebel ma dhihi kara hadda waliba ninkaas anigana waa shaqada waa laga qaaday asagana janna laga dhigay bal kadib ebidkeena ma dhihin waana la ogyahay ebidkeena ma dhihin hebel xiray ninka la xirana waa ogyahay aniga inaan xirin kuwa wasiirada shaqada ay qaadeen waa ogaa inaan xirin ee curricular tiers ayuu ii sheegeen ayaa waxaan oo dhan laga ahaa waxaan rabaa marka sideeda general ku ahaa ma noo sheegi kartaa magaciisa mar kale aan ka hadlaa mar inaan disclose gareey ma rabo laakiin general ku qaatay waa la ogyahay waa la baari karaa dadku waa la fahmi karaa general ku qaatay anaan isku dhigay kiiskaas anoo dhihi kara hal xiro waa tuug ma yeelin faysifin anoo samaysan karo jagadeeda protect gare karo waxa yiri ninka shaqadaas anaa amray anaa yiri of course maybe I mishandled laakiin waxaan diidaayay in lay gacan dhaafo shaqaalahayga horta madaxweynaha dadkiisa in loo gacan dhaafo oo la yiraahdo adiga kuma ku jirtide hebel ii sheegeen maxaan ku dhahay leex sax ma sida wareysigana ku jirtay oo bixiyo gudoomiyaha waxa kamid ahayd in maalintii ugu dambeysay maalintii ku horeysay ee qalbi dhagax xabsiga laga soo saaray in gaariga lagu soo qaaday adiga aad ku jirtay arrimahaasi sidaas ma u jiraan horta sideedaba aniga taliyaan ahaa minimum 3-4 kun qof aan ii shaqeynaysa sabab aniga aan maxbuus qof xabsi ku jira aan toos ula macaamil horta ma jirto xaasha Allah Cabdiqaadir waxa maqla asagoo dhahaya baabuurka ninka saarnaysan balooshuna u marayna ma aha mana u tagin mana arkin aniga qalbi dhagax mana la sheekaysan baabuurna lama raacin wayahay dhanka kale waxaa jira kulan Abdi Xaashi iyo xubno kale aqalka sare ay madaxweyne farmaajo la qaateen iyagoo xog doon ah arintan qalbi dhagax ku saabsan markii u tageerna madaxweynaha adigu kula soo xiriiray telefoonkaas oo wacay deetana aad ku beertay kulankaasi madaxweyne farmaajo iyo Abdi Xaashi madaxweynuhu uu ku yiri waxa aad ii sheegaysaa Abdi Xaashi oo sheeg kulankaasi maxaad uga hadasheen ruwan markii hore ama sheegaba fiiri run waay horta waxaan ka wada hadlay waa sheegnay arrinkaas waxbana ku darimaha waxbana ka dhimaha sida Abdi Xaashi uu sheegay inaan madaxweynaha iyo aniga inta la weydiiyay waxaas aan sheegnay waa run been ma laakiin dhanka kale waxaa jirta in qalbi dhagax qudhiisa oo fiisaha in laga caawiyo dowladda Ethiopia loo dhiibo oo raalli ka yahay si Ethiopia uu la heshiiyo sidaas ma u jirtaa ma aniga taas inuu qalbi dhagax dhiibay inuu dhiiban wax kale laakiin conversation ka aniga madaxweynaha iyo Abdi Xaashi xilligaas dhaxmaray sida Abdi Xaashi uu sheegay waa run yani conversation waa dhaxmaray laakiin habka loo stage gareynayo qaldan habka loo stage gareynayo ayaa qaldan
muuga conversationkaas waa run fadlan sharaxaad naga sii wada sheekaysigaas maadaama hadda ma madaxweynaha waaba sheegay aniga waxaan riyay arrinkaas waxna ku dari maha in madaxweynuhu u yeeray qalbi dhagax ma waa isdhiibaa ii sheeg maxaan ku dhahaa baasboorkan hadda ma xasuusta etoobiyaanka arrinkaas waa run yacni in oo conversationkaas aniga iyo cabdi xaanshe iyo madaxweyne aan yeelanay waa run odagaas ma ku beenaa arrinkaas qorsho wuxuu ahaa in qalbi dhagax Itoobiya lagu wareejiyo laga saacido sida uu ku tagi lahaa I think it's a matter is not hadalka oo sida loo sheegay inuu run u yahay iyo inuu been yahay horta waa wax kale yani aniga mar raba qastiga hadalka ina sheegno soo ma laakiin conversationkaas waa yeelanay laakiin aniga hadda warkaas yani qalbi dhagax ma asaga isdhiibay iyo qalbi dhagax horta qalbi dhagax isdhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibno horta marka rekoorka sare loo dhigo qalbi dhagax isdhiibay ma jirin qalbi dhagax anaga dhiibnay soo ma ma taliyana wad sugida sambal shadhiin man sambal waa ku sheegay already aniga ku sheegay foreign policy ani dawladna ani xiriir la leh Soma aniga horta waxaa rabaa Soomaalidu inay tiri ama aniga ma dhiibin hebel aa dhiibay orniyo arrinkaas qalbi dhagax dhiibay anu qayban ka aha laakiin igumana bilaaban igumana dhamaan amarka hal soo qabto gaalkacyo yaa lahaa si toos ah ma raba inaan arrinkaas waa operational details waana sheegay inaan ka hadlo ma raba aniga ma raba inaan ka hadlo taas iga wala soo qabto taas ma horta qarsoon waa la dhiibay ama qarsoonta waxa kale too dhan waa arkiis waa argaagtan iyo ii sheegan rafasho haddii Soomaalidu wadaniyada aad sheegtay inaysan runka ahayn oo ooyintii xaaska ay tahay kiiskan mudane maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressureka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay lama aniga waxaan rabaa qalbi dhagax eedan waa laga galay waa run Sooma laakiin waxaan ma ilaahay keen xamar ma kuna qof ku dhimatay yaa qof weynaa maarat ma kuna Soomaaliya ku dhimatay badda qof weynaa maarat ninkan waxa waaye sidiisa farmaajo Soomaalidu malaha markii horeeto they thought in all the on my big small god ilaah yar uu yahay wax kastoo shar oo ka xigsan karo ya inuu ka xigsan kareetin horta calaamad u tahay war madaxweyne sideedaba dawlad kasta madaxweynaheed wuxuu reflection u yahay awoodda ama dhaqaale ama military ama midnimo oo dalkiisa oo dalaanan territorial midaysnay oo political midaysnay oo security unstable ahayn oo ciidan shisheeye joogo how do you expect ii sheegeen madaxweynihiisu inuu sharaf yeesho oo waxaan difaaco maxaad inta xukuumadda qalqalkii culayskii pressureka loogu saarayay dal iyo dibad aad ula wadaagi weysay waqtigan waqti ka horeeyay sideedaba aniga moogtahay marka aniga systemka aan ku jiro systemka hadda saddex sano 2 sano ka badan ka maqana anigu ka hadlay waxaan ma aragtay maya horta hadda waxaan rabaa rekoorkan sidiisaba in la xiro madaxweynaha initiative-ka uu qaato ra'iisul qaato mashruucan lagu xiraayo anigana waxaan rabaa inaan bilaabo waxaan sheegaan waa recommendations iyo talo aan siinayo madaxweynaha iyo hadda anigu ku jirin waa lay qasbay waa lay yeelay aniga iska milixana I'm part of it waa qirana in laga afiyaan rabaan ku yiri cudurdaarka aad sheegtay waraysigan qaybta horena ku jirtay ee qalbi dhagax iyo qoyskiisa ma si cad ayaad u leedahay kiiskii xarigii qalbi dhagax ee gaalkacyo dawladda ay ka soo qabtay qaybtii aan ku lahaa ayaan si toos ah idinkaga raali gelinayaa saas miyaad leedahay of course wax kasto processkaas oo ama xariga ama dhiibista ama dhibaato ka soo gaartaan ka raali gelin xukuumaddan oo uga baaqay in ka raali geliyaan mashruucan iska xiraan adiga kala maanta oo dhan waa lagu dhibaa ma ka shalaynaysaa xarigii qalbi dhagax sideedaba marka xafiiskaas aan joogo wax shaqada aanay qabanaa waxaan ka shalaynaa ma jirto ani shaqo oo aan danteyda aan ku qabsanay ma ahayn wixii markaas ila ahaday dadkaan xiray anigu furo janna ma ahayn waa ku sheegay aniga sideedaba of course wixii ficilkaaga oo xumaanaho bini aadan ka soo gaaro dhibaato ka soo gaarto waxa la yiri walaalka candhuuftaadu gaarto gacantaada ha gaarto aad baan kaga mahadcelinayaa aniga waxaan aaminsanahay shaqadeyda si honesty ah oo niyad wanaag ah oo aanan ahayn khiyaano oo ku danaysa ahayn u fulna aniga horta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan fahamsiiyo farmaajo ama qof kastoo madax ay dooranayaan wuxuu yahay iyo siduu yahay kuma doortaan wuxuu ku dooranay siduu u muuqdo farmaajo horta sidii dadka Soomaaliyeed ninkay u maleeyaan horta ma ahan dadka Soomaaliyeed anoon hadal badan sameeynin ninkay u maleeyaan ma ahan nin caana madaadshaah u muuqdaa nin wuxuu u muuqdaa maskiin horta ninkaas waa nin canaan maqaata which means
laakiin waxaa ka hadlaysa which means ii sheeg dabcan qof kastoo noolna negative traits waa leeyahay positive traits waa leeyahay qayb xun waa ku jirtaa qayb san waa ku jirtaa laakiin ani waxaan rabaa anuuna hadda farmaajo waa xun yahay iwaasiyaan lahayn ninkii u maleeyaan ma ahan intaasaan rabaa inaan kusoo koobo watay daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynayaa warayskii gaarka ahaa oo aynu la yeelanay cabdulaahi maxamed cali sanbaloolshe taliyii hore nabad sugidda qaranka soomaaliya oo faahfaahin ka bixinayay warbixinada la xiriira kiiskii qalbi dhagax ugu dambayntii uu ku baaqay in sidiisaba la soo xiro sidaasina looga gudbo aad baan uga mahad celinaynaa in waraysigan uu inaga aqbalo daawadayaal idin aad baad ugu mahadsantihiin inaad nala socoteen sidaa iyo nabadgelyo